nabadgelyo korkaaga ha ahaato ku soo dhawow barashada xisaabta xili walba goor walba iyo waliba waqti walba oo aad adigu jeceshahay daawade magacaygu waa Shine Gestir waxaan caawa video gaaban ku baranaynaa cashirkeeni shanaad ee xisaabta jajabta taasoo ciwaankeedu yahay multiplying fractions isku dhufashada jajabta markii la isku dhufanayo xisaabta jajabta waxaa la isku dhuftaa sareeyaasha iyo hooseeyaasha jajabta aad haysatid waxaana la yiraahdaa halkan daawade isku dhufo xisaabta jajabta ee hooskaaga muuqata waxaa halkan waa muuqda afar tusaale oo ah xisaabtii jajabta taasoo la rabo inaan isku dhufano waxaan ku horeynaynaa tusaaleheena koobaad markii la isku dhufanayo xisaabta jajabta waxaa la isku dhuftaa sareeyaasha waxaan dhahaynaa 4 lagu dhuftay 6 waxay la mid tahay 24 waxaa kaloo la isku dhuftaa hooseeyaasha 5 lagu dhuftay 7 oo la mid ah 35 sidaas ayaa waxaad ku xalisay tusaalihii koobaad waxaan u gudagalaynaa tusaalaheena labaad waxaan dhahnay marka la isku dhufanayo xisaabta jajabta waxaa la isku dhuftaa sareeyaasha marka hore kadibna waxaa la isku dhuftaa hooseeyaasha balan ku horeyno sareeyaasha 6 lagu dhuftay 6 waxa weeyaan 36 8 lagu dhuftay 10 waxa weeyaan 80 sidaas ayaa waxaan ku soo xalinay tusaalaheeni labaad waxaan u gudagalaynaa tusaalaheena saddexaad waxaan dhahaynaa sidoo kale 2 lagu dhuftay 3 waxay la mid tahay 6 iyo 9 lagu dhuftay 1 oo la mid ah 9 sidaasna waxaan ku soo xalinay tusaalaheeni saddexaad waxaan u gudagalaynaa tusaalaheena ugu dambeeya oo ah tusaalaha afraad waxaan dhahaynaa 23 lagu dhuftay 15 kadibna waxaan dhahaynaa 11 lagu dhuftay 27 balan calculatorkeena soo qaadano 23 lagu dhuftay 15 waxay la mid tahay 345 11 lagu dhuftay 27 11 lagu dhuftay 27 waxay la mid tahay 297 sidaasna waxaan ku soo xalinay tusaalaheeni ugu dambeeyay daawade marka la isku dhufanayo xisaabta jajabta runtii aad iyo aad ayay u sahlan tahay waayo waxaad isku dhufanaysaa sareeyaasha iyo hooseeyaasha sidaa darteed waxaan ku leeyahay xisaabi waa practice inta aan video la mid ah ku kulmayno waxaan idin dhaafayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh